Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muddo dheer oo aanan muuqaalo soo dhigin channelkeena kadib, maanta waxaan idin hayaa qiso aad u la yaab leh, taas oo ku tusinaysa garaadbadnida iyo xagga fog ee ay ka fikirayeen xukaamtii hore ee dadka muslimiinta u talin jiray. Haddaba haddaynu mowduuceena guda galno, waqtigii saxaabada, 3 nin ayaa waxa ay wada dhaxleen 17 neef oo geela. Sida ay u kala dhaxleenna waxay ahayd midkoodba wuxuu qaadanayay 2 meelood oo meel ka mid ah geela, ka labaadna wuxuu qaadanayay 3 meelood oo meel ka mid ah geela, ka kale saddexaadna wuxuu qaadanayay 9 meelood oo meel ka mid ah. Haddaba si uu mid walba intiisa gooni ugu qaato ayaa waxa ay u tageen qof u qaybiya. Markii la yiraahday qaybi, xoolihiina way qaybsami waayeen, oo ka koobaad marka la eego waxa ku soo hagaagtay 2 meelood oo meel ka mid ah geela. Tirada geeluna waxay ahayd 17. Haddaba 17 marka 2 loo qaybiyo waxa soo hadhaya 8.5 amba 8.5. ninka labaadna waxa ku soo hagaagay 3 meelood oo meel ka mid ah geela. 17 marka 3 meelood loo qaybiyo waxa ku soo hagaagaysa 5.6 amba 5.6. ka saddexaadna waxa ku soo hagaagay 9 meelood oo meel ka mid ah, oo marka 9 meelood loo qaybiyo 17kii waxa ku soo hagaagay isagana 1.8 amba 1.8. waad arkaysaano xaaladdu way qadhaadhaatay, oo waayo waxay gashay point. waxa la qaybinayaana waa xoolo nool ee lacag maaha. waxaana la doonayaa in si fiican loo qaybiyo iyadoo aan dhiig la daadin oo neef la qalin amba aan mid ka mid ah la iibin. marka ay xaaladdu xaggaa marayso ayaa waxay isku waafaqeen 3 nin inay u tagaan Cali bin Abi Talib si uu isagu ugu qaybiyo. Haddaba markii ay u yimaadeen Cali bin Abi Talib si uu ugu qaybiyo ee uu arkay isaguna inaana sheekadu sidii hore dhaamin, ayuu wuxuu ku yidhaahday 1 neef oon leeyahay ma idinku darsan karaa. iyaguna iyagoo aad ula yaaban oo isla talo muxuu uga jeedaa ayay ku yidhaahdeen waayahay. intaa kadib Cali bin Abi Talib intuu neefkiisa waxayna noqotay sida tan: ninkii koobaad ee 2 meelood oo meel ka mid ah geela helayay, marka 18 laba loo qaybiyey waxa ku soo hagaagay 9 neef oo geela. kii labaad ee 3 meelood oo meel ka mid ah helayayna, markii 18 3 meelood loo qaybiyey waxa ku soo hagaagay 6 neef oo geela, halka kii saddexaad 9 meelood oo meel ka mid ah helayayna ay ku soo hagaageen 2 neef oo geela. haddaba markay qaybtii sidaa u dhacday, waxa la yaab leh soo baxay markiiba in marka xoolihii la qaybiyey la isku wada geeyo ay 17 isku noqdaan. Cali bin Abi Talibna radiyallahu anhu uu neefkiisa u soo hadhay. waxaana ka sii la yaab badan in sidan hadda uu Cali bin Abi Talib u qaybiyey xoolaha iyo sidii markii hore loo qaybiyey haddii la isku eego farqi weyn oo u dhexeeya uu soo baxayo. waayo haddii aynu iminka in yar sira barbardhino sidii markii hore loo qaybiyey iyo sidii uu Cali bin Abi Talib u qaybiyey, bal haddaynu ninka koobaad tusaale u soo qaadano, qaybtii hore la qaybiyey marka 17 laba loo qaybiyo waxa ku soo hagaagay 8.5 amba 8.5, halka markii dambe uu Cali bin Abi Talib qaybiyeyna ay ku soo hagaageen 9 neef oo geel. ka labaad iyo ka saddexaadna waa la midun, oo ka labaadna markii hore wuxuu haystay 5.6, iminkana 6 neef buu haystaa. ka saddexaadna markii hore wuxuu haystay 1.8, iminkana 2 neef buu haystaa. marka xaggaa waxa kaaga caddaatay in haddii nin walba la eego ay labada qaybood isdheer yihiin wax oo ay qiimayaashu kala badan yihiin, iyada oo labada qaab loo qaybiyey ay labaduba sax yihiin, laakiin maskaxda loo kala adeegsaday ayuunbaa kala badnayd. 3 ninna si cadaalad ah loogu qaybiyey oo barax tiran, nin walina isagoo faraxsan buu bartii ka dhaqaaqay, halkaasoona Cali bin Abi Talibna waxba ka khasaarin oo ay heshiisiina u soo noqotay. haddaba su-aal baa meesha taalla: dadka berigii hore ee ay ka mid ahaayeen Cali bin Abi Talib iyo dee asxaabtii nabiga kala fara badneed ridwaanullaahi calayhim, maxay kaga duwan yihiin dadkan iminka jooga? jawaabtana idinkaan idin deynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.